Mid baa walaashiis oo soo degaysa eelaboorka ka doonay. Wuxuu u tegay walaashiis asxaabteeda oo soo dhoweynteeda u safan. Walaashiis iyo gabdhihii ayuu gaariga ku soo qaaday. Gabadhii gabdhaha u qurux badnayd buu shukaansaday, guur ayayna isku afgarteen. Xafladdii arooska waxaa ka soo qayb galay gabdho badan oo walaashiis saaxiibo la ahaa, oo qaar badan oo gabdhahaasi ka mid ah horay uma arkin. Gabar gabdhihii xafladda ka soo qayb galay ka mid ahayd baa aad u cajab gelisay. Waxay ahayd gabadha uu guursanayo mid baac iyo bar dheer. Quruxdeedii buu la indho daraandaraye, inta uu gacanta qabtay ayuu gees ula baxay, dhegteedana afka u soo dhoweeyey. Kulaha, adiga eelaboorka maxaad u imaan weyday? Sheekada labaad, gabar sar dheer iska soo tuuri rabta ayaa waxaa arkay wiil. Wuxuu dhahay, abbaaya ha isdilin, naftaada ha gooyn, mushkilad kasta oo ku haysata xal bay leedahay. Waxay tiri, aniga mushkiladeyda xal ma lahan. Markaasuu yidhi, bal ii sheeg, waa intaasoo aan wax kaala qaban karo ee. Waxay tiri, dadka oo dhammi waxay i dhahaan, doqon baad tahay. Wuxuu ku yidhi, doqon ma tihid, anigaana kuu caddaynaya inaadan ahayn. 3 su'aalood baan ku weydiinayaa. Haddii aad si sax ah uga jawaabtid, doqon ma tihid. Su'aasha koowaad, waa maxay waxa 3 gees leh ee inta badan bisha soon lagu afuro? Waxay tiri, waa hilib. Wuxuu yidhi, waad dadaashay, laakiin ma ahan oo waa sambuus. Su'aasha labaad, sheeg wax inta badan sambuuska aan ka harin oo lala cuno. Waxay tiri, waa hilib. Wuxuu yidhi, waad dadaashay, laakiin ma ahan oo waa bur. Su'aasha saddexaad, waa maxay waxa xoolaha laga helo oo ay Soomaalida raashin ahaan u cunto kuna faanto? Waxay tiri, waa sambuus. Wiilkii inta soo booday kulaha, iga raali ahow waan ku daahiyeye, hawshaada iska wado. Waa qalinkii Al-Ustaad Sabriye Muuse. Waxaan filayaa saaxiibayaal sheekooyinka inaad ka bogateen oo aad ka hesheen. Inala wadaag labada sheeko mida sida khaaska ah kuu soo jiidatay. Muuqaalkan la wadaag asxaabta kale si ay iyagana uga bogtaan oo inoo sheer gareeya.